fariintan waxaa rabaa inaa gaarsiiyo Soomaali meel walba dunida ka joogaan waliba inta aqliga u saaxiibka ah oo qalbigooda nadiif ku yahay dalkeena wuxuu aadi doonaa doorasho sanad iyo 4 bilood kadib laba dawladood oo isxigtana wayna soo martay dawladdii hore waxaa hogaamin jiray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dawladda waqti xaadirkan joogtana waxaa hogaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dawladdii hore madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu dalkan imaaday waxyaabaha aan ku xasuusana waxaa kamid ah in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qalin iyo buug u qaatay dhibaatooyinka Soomaaliya haysto sida loo xalin lahaa wuxuu dadaal iyo fikir iyo aqli iyo waqti iyo maalba ku bixiyay sidii dib loogu soo celin lahaa dawladnimada iyo maaragtay sharafkeeda iyo ciisadeeda iyo qabkii dawladnimo ee Soomaaliya ee lahayd in dib loo soo celiyo waxaa loo kuurgalay in ciidanka dib loo fiiriyo waxaa soo baxday in ciidankii oo maaragtay tiro sax aan laga haynin dib u dhis ayaa lagu bilaabay ciidamada qalabka sida ee dalkan waxaa ciidamada xoogga dalka loo dhiibay sareeyagaas Odawaa Yuusuf Raage waxaa hay'adda nabad sugidda loo dhiibay Sanbaloorshe ciidamada asluubta waxaa loo dhiibay nin la yiraahdo Taliye Shub taliyaha booliska gobolka Banaadirna waxaa laga dhigay nin la yiraahdo Saadaq John dawladnimadii iyo systemkii markii la fariisiyay waxaa la ilaaliyay hantidii qarankan uu lahaa waxaa dhibaatada loo diiday in la dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed iyo hooyooyinka meel walba ay joogaan hantidii qaranka iyo amaanadii lagu wareejiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa lagu qabtay goos dambeed si aysan u dayacmin ganacsatana aysan uga faa'iideysanin iyo dad dana gaar leh markaas intaas markii ay dhacdo waxaa la isku dayay in ummadda laga dhaadhiciyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay nin dictator ah raba dalka inuu ku qabsado muxuu ahaa inqilaab military oo dalka xoog ku maamulo kaligistaris uu yahay waqti xaadirkan aad joogno qofka aqliga la wuu dareemi kara Soomaaliya maanta qofkii raba inuu kalitalisnimo kula dhaqmo ama inqilaab uu ku qabsado uu rabo dalkan inuu yahay dal federaal ah reer walbana halka ay degaan ay isku maamulaan yaa dictatorinimo ku maamulay yaa samaxo inqilaab military ku qabsanay haddii maanta aad ku dhawaaqdo in waddanka inqilaab uu ka dhacay reer walba meesha isku maamulaan ay xiranayaan mana u gali kartid taas waa taas dawladda hadda jirta markii ay yimaadeen waxaa la isdhahayay khibrad hore ayay wataan oo 4 sano hore ay dalka soo maamuleen haddana dalka si wanaagsan ay u sii maamuli doonaan halkii la rabay in qalin iyo buug ay u sii qaataan dawlad dib u dhiska dawladnimada ayna soo celiyaan sharafkii iyo karaamadii waxaa dhacday in ay dib u qaataan meeshii qalin iyo buug laga rabay cagaf iyo qoryo si loo barakiciyo hooyooyinka iyo dadka masaakiinta ee degan dhulalkii dawladda ayadoo la rabo in lagu wareejiyo dad dana gaar leh oo ganacsato ah cagaftaas oo habeen barkii socota ee hooyooyinka guryaha ku dumisay qoryaha daba socdana reerkii diiday in xabad xoog looga bixiyo ay gaartay ayaan haddaan maraynaa dalkuse wuxuu aadi doonaa doorasho haddii ay noqoto qof iyo cod ama ay noqoto doorasho dadban waxaan shacabka Soomaaliyeed halkan uga gudbinaa su'aal ah yaa mudan qofkii ilaaliyay hantidii dalkan iyo sharafkii dalkan iyo in la diiday in la dhibaateeyo hooyooyinka iyo maatida iyo shacabka in la dhibaateeyo murug iyo fikirna ka ilaaliyay dhaqaalaha dalkana inuu socdo ogolaaday iyo qofka raba in hooyooyinka guryaha lagu dumiyo xoog looga saaro xabad lagu rido la murjiyo fikir lagu abuuro dhaqaalihii dalka inuu xirmo ma aragtay kanaaladii dalkan laga kala xiray dhibaatada ku haayeen dib loo soo furay ma qofkaas ayaa mudan mase qofkii dalkan iyo dadkan shacabka u roonaa u dhimrinayay ayaa mudan haddii doorasho dalkan ay ka dhacayso in dib loo doorto su'aashaas waxaan dhex dhigay Soomaali inta aqliga u saaxiibka ah